wacan oo wanaagsan idilkiin baddaawadayaal meel kasta oo caalamka nagala socotaanba kuna soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyada oo idin ka soo tabinayna telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee Somaliland National TV. barnaamijkan oo ah mid taxana ah uguna talagalnay inaanu ku lafagurno tiknoolajiyada. barnaamijkii kan ka horeeyay waxa aan kaga hadalnay qodob ay kamid ahaayeen bilowgii personal computerka iyo waliba asaaskii kumbaniga weyn ee Microsoft. qodobada kale barnaamijkeena hore aan ku soo qaadanayna waxa kamid ahaa spyware-ka iyo sida looga hortago in mobilkaaga lagu basaaso. inagoo qodobkii ugu dambeeyay barnaamijkeena hore kaga hadalnay xawliga iyo xawaaraha tiknoolajiyada oo aan ku soo qaadanay gaari cusub oo ah noocan darawal u baahnayn laguna wada sanada 2020 in loo iibkeeno suuqyada adduunka. horumar kasta oo bini'aadanku ku tallaabsado ama mar kasta oo hore u socdo wax kasta soo kordha iyaduna waxa tixgelinteeda mudan oo ah mid aan indhaha laga qabsan karin dhibaatooyinka iyo waxyeelada u gaarka ee horumar kasta u wato. barigi hore tuuga raba inuu ku xado waxa waajib ahayd inuu ku soo dhaco ama albaab soo jabiyo, laakiin tiise tiknoolajiyadu waxay suurta gelisay inuu isagoo aan albaabna la soo jabin gurigaagana la soo dhicin xog muhiim ah laga xadi karo. haddaba barnaamijkan tiknoolajiyada iyo toddobaadkan waxaan idinku haynaa warbixin aanu ka soo diyaarinay hackerska oo ah dadka u dhaca ama jabsada kombiyuutarada iyo fayraska oo ah program ay isticmaalaan dadka u dhaca kombiyuutarada si ay ugu waxyeeleeyaan kombiyuutar qof kale leeyahay amaba uga baxaan xog muhiim ah oo ay rabaan. qodobka ugu horeeya barnaamijkan tiknoolajiyada iyo toddobaadkan waxaan idinku haynaa kombiyuutar fayrasyadii ugu waaweynaa ee adduunka soo maray qaar kamid ah iyo waxyeeladii ay geysteen. qodobada kale barnaamijkeena tiknoolajiyada toddobaadkan aad ku maqli doontana waxa kamid ah sida aad kaga hortagi karto ama kaga gaashaaman karto virus kombiyuutarkaada waxyeello u geysta iyo tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado. waxay ahayd duhur dabadii maalin khamiisa, taariikhduna waxay ku beegnayd 14 bishii August ee sanadii 2003. jawigu guud ahaan wuxuu ahaa mid aad u kulul dhinaca waqooyi galbeed ee deegaanada ay ku yaalaan magaalooyinka New York ee cariga Mareykanka iyo magaalada Toronto ee dalka Canada. dadkuna waxay isku diyaarinayeen labada cisho wiiga dhamaadkiisa ee aala laga nasto shaqooyinka. ma jirin qof ogaa ama saadaalin karayay waxa dhici doona. Massive power blackout hit the United States and Canadian cities, closing nuclear power plants. 100 power plants shut down and 50 million people in two countries. nolosha 15 milyan oo qof ayaa mar kaliya sakana gudahood isku bedeshay waxaan la filayn. waxaa mar kaliya go'ay laynankii telefoonada, biyaha iyo laydharka oo dhan. kumanaan kun oo qof ayaa ku go'doomay liftiyada guryaha iyo marinada dhulka hoostooda. xaddiga khasaaraha ka dhashayna waxa uu gaadhay $6 bilyan. laamaha dawladda ee arrintaasi khuseysay markii hore waxay sheegeen inay arrintani ka dhalatay dhirdhaadheer oo waxyeello u geysatay xadhkaha dabka qaada, laakiin xaqiiqda dhabtii waxay ahayd mid intaas ka fog. 3 cisho ka hor dhacdadan oo ku beegnayd 12 bishii August ayaa qof aan la garanayn meel aan la ogeyn ka soo diray computer virus u diyaariyay oo ha fayrasyada adduunyada soo maray midkii ugu khasaaraha badnaa. fayraskaas oo lagu magacaabay Blaster. sida khubaro badan oo internetka isku raaceenna waxa uu ahaa weerar ka dhana internetka kii ugu weynaa ee shabakada internetka soo mara. Mike oo ah mid kamid ah khubarada ku talax tagay la dagaalanka iyo hogaarsiga fayrasyada kombiyuutarada kana shaqeeya laab weyn oo fayrasyada lagu baaro oo la yiraahdo F-Secure oo ku yaala dalka Finland ayaa ahaa isaga iyo tiimkiisu dadkii ugu horeeyay ee ka war hela ama ogaada fayraskan Blaster markii ugu horeeyay ee internetka soo galay. nooca fayraskan oo ahaa mid khalkhal badan geliyay in badan oo kamid ah adduunweynaha waxa ugu horeyn hilfaha u qaaday database-ka diyaaradda Air Canada ay ku jireen macluumaadka rakaabka diyaaradda raacay. After a virus overwhelmed some of the airline's computer networks. taasoo keentay in rakaabka ay ku tuulmaan airportada waxbana kala socon waayaan waxa kale oo dhammaan jiray khadadkii tareenada ee 23 gobol. sida caadiga fayrasyadu waxay isku dhex qariyaan programmada kale internetka, isla markaasna waxa uu kombiyuutarkaada ku soo gaari karaa isagoo la socda email lagu soo diray. inta badanna uma gudbo kombiyuutarkaada ilaa qof u furay emailkaas amaba kali garay attachment la socda emailka. laakiin fayraskan Blaster waxa uu ahaa nooc ka duwan nooca aan soo sheegnay oo la yiraahdo worm. nooca fayraskani uma baahna program kale oo qaada amaba xambaara. isaga laftigiisa ayaa isfaafiya isagoo gudbaya khadka internetka.
si kale haddaanu sheegnana blaster waxa uu kombiyuutarkaaga ku soo gaari karayay inuu khadka internetka ku xidhiidhsan yahay oo keliya. meelaha uu sida gaarkaa khatarta weyn ugu hayeyna waxaa ka mid ahaa bangiyada waaweyn, xarumaha biyaha laga kaantaroolo, warshadaha waaweyn ee laydharhka iyo diyaaradaha adduunka isaga goosha, maadaama kombiyuutaradoodu yihiin kuwo markasta loo baahan yahay inay shidnaadaan. inta la ogyahayna meelaha ugu waaweyn ee uu gaadhay waxaa ka mid ahaa xarunta nukliyerka ee Ohio ee ku taalla waddanka Maraykanka. intaa wixii ka dambeeyeyna khubaro badan oo ah ilaalada internetka waxay isku raaceen inay maalin uu dhici karto weerar lagu soo qaaday internetka kaasoo burburin kara ama baabiin kara dhammaan habsocodka nolosha bini'aadanka, khasaare badanna geysan kara. maadaama ay maanta adduunka intiisa badan waxyaabihii nolosha oo asaasiga ahaa yihiin kuwa internetka ku xidhiidhsan. fayrasyada sida blaster oo kale waxay ka yimaadaan ama sameeya qolooyinka jabsada kombiyuutarada ee loo yaqaan hackeriska. haddaba hackerisku waxay u qaybsamaan 3 gruub oo gruubka ugu horeeya la yidhaahdo white hat ama koofiyadda cad. kuwan waa kuwo ugaadhsada ama la dagaalama fayrasyada, inta badanna waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dad wanaagsan. nooca labaad oo la yidhaahdo black hat ama koofiyadda madow, noocani waa kuwo khatar ku ah nolosha bini'aadanka. waa kuwa sameeya fayrasyada, inta badanna xada credit kaadhada ama geysta weerarada internetka intooda badan. kuwa ugu dambeeya ama kuwa saddexaad oo la yidhaahdo grey hat ama koofiyadda greyga, kuwani waa kuwo ka shaqeeya labada dhinacba, dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xunba, waxayna u dhaxeeyaan labada kooxood een hore u soo sheegnay. maalmahan dambana haakinku wuxuu noqday suuq aad u soo koraya. waxaa maanta jira bugaag badan oo aad suuqyada adduunka meel kasta ka helayso, jariirado iyo kalaasyo badan oo aad ku baran karayso sida wax loo haakareeyo ama kombiyuutarada loo jabsado. weerarada iyo khasaaraha ay geysteen hackeriskuna ma jiro ilaa hadda mid ka xun kii uu geystay wiil yar oo isku bixiyey Mafia Boy. tan iyo intii ay bilaabantay ganacsiyada internetka wax lagu kala iibsadaana shirkado badan oo ay ka mid yihiin Yahoo, eBay, Dell, Amazon iyo weliba qaar kale oo badani waxay maalin kasta ka sameeyaan ganacsiga internetka ay ku sameeyaan $100 milyan. muddo haatan laga joogo 16 sano oo ku beegan bishii February ee sanadii 2000, websaytada shirkadahan aynu soo sheegnay waxay markaliya ku war heleen weerar culus oo internetka ah oo ay ku soo qaaday wiil yar oo isku bixiyey Mafia Boy oo ahaa waqtiga da'diisu 15 sano, kuna jiray dugsi sare oo ku yaala magaalada Montreal ee dalka Canada. Michael oo ahaa wiilka yar ee isku bixiyey Mafia Boy markuu jiray 12 sano wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka looga dambeeyo hacking-ka ama sida kombiyuutarada loo jabsado. markuu 15 sano jirayna waxa uu ku biiray mid ka mid ah gruubada ugu khatarsan ama ururada ugu khatarsan hackeriska oo ka soo jeeday waddanka Russia laguna magacaabi jiray TNT Force. Mafia Boy si uu muujiyo awoodiisa iyo xirfadda uu leeyahay jabsashada kombiyuutarada waxa uu samaystay virus cusub kaasoo ah mid aan awoodiisa hore loo arag, isla markaana waxa uu ku bartilmaameedsaday mid ka mid ah websaytadii ugu waaweynaa, ugu suuqa badnaa, ugu mashquulka badnaa, welibana ugu faa'iidada badnaa adduunka. waa yahoo.com. aroornimadii hore ee 7 bishii February sanadii 2000 Mafia Boy waxa uu diyaariyay weerarkiisii uu ku qaadayay Yahoo. fayraskiisana waxa uu ka dhigay mid uu ku waqtiyay saacada kadib inuu iski u hawlgalo, kuna jihaysta halkii uu ugu talagalay. intaa kadibna waxa uu wamba baxay iskuulkiisii uu maalinta lahaa. intii uu kalaaska ku jirayna waxa uu ahaa mid qalbigiisu ku maqan yahay tirinta minidada ka hadhay xilliga uu hawlgeli lahaa hubkii fayraska ahaa ee uu maleegay weerarka dhanaca shirkadda Yahoo. 10 subaxnimo waxaa si toos ah u bilaabmay weerarkii internetka ee laaya maanta taariikhda ku xusan inuu yahay kii abid ugu weynaa, waxaana hawada si toos ah u galay fayraskii uu farsameeyey Mafia Boy isagoo ku jihaystay kombiyuutarada shirkadda Yahoo. wax ka yar daqiiqada gudahood ay shirkadaasi ku war heshay weerar aan kala go' lahayn oo markaliya ku habsaday. nooca weerarkan uu Michael ku qaaday shirkadda Yahoo waxaa la yiraahdaa denial surface attack. sida caadiga markaad website gasho ama aad furto waxaad codsi u diraysaa serverka website-kaasi leeyahay. tusaale ahaan markaad internet browser-kaaga ku qorto www.yahoo.com waxaad hal codsi u dirtay mid ka mid ah serverada Yahoo ay leedahay. denial surface attack oo ah weerarkii uu Mafia Boy ku qaaday shirkadda Yahoo waxa uu dirayaa $100 milyan oo codsi second kasta, isagoo adeegsanaya kumanaan kombiyuutar oo kale oo soo afduubay dhammaantoodna ku jihaynaya website-ka Yahoo, taasoo ka dhigaysa in $100 milyan oo qof ay second kasta soo booqanayaan website-kaas, taasoo kombiyuutarada ku ridaysa khalkhal iyo inuu waayo awood uu kaga soo jawaabo codsiyada ugu soo jabaya sida daadka, isla markaana ku qasbaysa kombiyuutarka inuu istaago ama hawada ka baxo. ilaa iyo maantadan aynu joognana ma jiro difaac fiican oo la iskaga celin karo weerarka noocan oo kale ah. markuu dhammaaday iskuulkii
Mafia Boy wuxuu si degdega u abbaaray gurigiisii. Ileen warbaa ugu gaajo badane si uu uga war doono halka uu ku dambeeyay weerarkii uu maleegay. Laakiin waxii uu filayay wax ka weyn ayay indhihiisu qabteen. taasoo ahayd in ilaa hadda uu hawada ka maqan yahay website-kii shirkadda weyn ee yahoo.com gebi ahaantiisba. markii uu arkay Mafia Boy awoodda fayraska uu sameeyey waxa weerarkiisii ku sii ballaadhiyey website kale oo ay ka mid yihiin CNN, Amazon, eBay iyo weliba Dell.com oo dhammaantoodba ahaa websaydyada ugu mashquulka iyo faa'iidada badan adduunka. isla markiiba waxa iyagana hawada laga waayay dhammaanba websaydyadaas oo dhan. khasaaraha miisaaniyad ahaan ugu weynina waxa uu ku dhacay shirkadda warbaahinta ee CNN.com iyadoo 12 website oo kale oo ay lahaayeen dhammaantoodba iyagana laga waayay hawada markeliya. weerarka ku dhacay shirkadaha ugu waaweyn suuqyada adduunka waxa uu qabsaday dhammaan headlineskii wararka adduunka. waxa iyagana isla markiiba hoos u dhacay qiimihii ay shirkadahaasi ka taagnaayeen suuqyada dhaqaalaha adduunka. warbixintii ugu horeysay ee laga soo saaray xaddiga khasaaraha uu geystay weerarkan uu qaaday wiilka yar ee 15 jirkii waxa lagu qiyaasay $1.7 bilyan. intaa wixii ka dambeeyay waxa gacanta lagu soo dhigay wiilkii yaraa ee geystay weerarkan. waxa uu 8 bilood oo xadhiga ku soo qaatay mid ka mid ah jeelasha carruurta lagu xidho ee dalka Canada. laakiin Mafia Boy waxa uu ka tagay arrin dhaxalgal noqotay iyadoo kombaniyadaasi ka barteen kana ogaadeen galdaloolooyin badan iyo daaqado badan oo furan kuwaasoo laga soo weerari karayay laakiin ay ku ogaadeen weerarkan uu ku soo qaaday wiilkan yar ee 15 jirkii. tan iyo intii ka dambeysay weerarka uu qaaday Mafia Boy waxa la ogaaday internetku inaanuba ahayn meel ammaankeedu sugan yahay. taasina waxa ay keentay in warwar badan iyo walaac badan ay ku beerto shirkadihii waaweynaa ee ka ganacsanayay. ilaa iyo inta la og yahay fayrasyada adduunka ka soo baxa amaba jira intooda badani waxay leeyihiin ujeeddo cad oo loo sameeyey. laakiin sanadku markuu ahaa 2007 waxaa internetka ka soo shaacbaxay nooc cusub oo fayrus ah kaasoo lagu magacaabo Stormworm. waxa uu ku soo weerarayaa isaga oo aan wax digniinaba ku siin ilaa iyo maantadan aan joognana lama yaqaano ujeeddo sax ah oo laga leeyahay amaba loo sameeyey. nooca fayraskan oo ah mid qarsoon waa mid aanay macquul xitaa ahayn inaad ogaan karto inuu kombiyuutarkaada ku jiro iyo in kale, sababtoo ah isagoo markasta isbedbedelaya si aan loo helin, kolba sidii maska oo kalena xub siibanaya. haddiiba ay suuragal noqoto inaad hesho ama aad ogaato inuu kombiyuutarkaaga ku jiro kadibna aad istiraahda iska nadiifi, waxa si degdega kuu soo weeraraya fayraska qayb kale oo ka mid ah oo dibadda joogta oo loogu talagalay ama dusha ka ilaalinaysa, taasoo dhammaanba hilfaha u qaadi doonta ama burburinaysa kombiyuutarkaaga wixii ku jira. laakiin sababta headlineska warbaahinta adduunka loogu soo qoray waxa weeyaan isagoo samaynaya wax la yidhaahdo zombie. zombie macnihiisu waxa uu yahay kombiyuutar laga maamulayo meel kale ama qof kale oo qarsooni uu hoggaanka u hayo ama uu hagayo. qofkii lahaa kombiyuutarkanina aanu ogeyn wax kastaana u eeg yihiin sidii caadiga ahayd. markuu doono inuu ka fushado wixii uu doono ama dan ka leeyahayna qofkan daaha dabadiisa ka maamulaya uu ka qabsanayo ama ka fushanayo wixii uu dan ka leeyahay. fayraskan waxa uu gaadhay kumanaan kombiyuutar isla markaana waxa uu sameeyey kumanaan kun oo zombie. kadibna qofkii fayrus ka sameeyey waxa uu isku wada xidhay kombiyuutaradaasi oo dhan. kadibna waxa halkaa ka samaysmay wax la yidhaahdo botnet. botnetka qofka maamulaya wuxuu awood u leeyahay inuu isticmaalo awoodda kombiyuutaradan oo dhan, sida hadduu doono inuu amar ku siiyo in kombiyuutaradan oo dhani ay markaliya ku jihaystaan weerarna ku qaadaan website-ka uu rabo. nooca weerarkaas oo noqonaya noocii uu Mafia Boy ku qaaday Yahoo ee la odhanayay denial service attack. khabiirada u kurgala fayrasyaduna waxay sheegeen in botnetkani ay isku xidheen ilaa in ka badan 50 milyan oo kombiyuutar, dhammaantoodna qofna aanu ogeyn halkay adduunka kala yaalaan. sida wadamada Russia oo kale waxa la iska kireeyaa botnetka. haddii aad rabto inaad website weerar ku qaadana adigoo karaysan kara saacadda ama maalinta oo dhanba. inkastoo ujeedada laga leeyahay aanay caddayn, laakiin waxa ilaa hadda la ogyahay in botnetkani ay maamulaan dad aan wanaagsanayn oo wadda gacanta ugu jirtaana ay tahay mid aad u weyn oo adduunka wax badan ku yeeli karaan. baryahan dambana waxaa sii badanaya dagaalkii siyaasiga ahaa u dhexeeyay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Russia, China, kuwa badan oo ku yaala Yurub iyo Mareykan inuu isu bedelay mid la isku ugaarsado ama la isku weeraro dhinaca internetka. inagoo soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyay barnaamijkeena tiknoolajiyadda iyo toddobaadkan kaasoo ku saabsan sida ugu fudud ee uga hortagi karta ama uga gaashaaban karto fayrus kombiyuutarkaaga waxyeela. hadalkaaga hortii afeef baa la dhigtaa, aqalkaaga hortiina ood weyn baa la dhigtaaye waxa ugu fiican inaad ka hortagto intaanay aafada dhexe haabaysa internetka ee fayrasyadu aanay kombiyuutarkaaga ku habsan.
tallaabada ugu horeysa waa inaad kombiyuutarkaadu lahaado amaba aad ku soo dejiso antivirus oo ah programmada lagula dagaalamo amaba lagaga hortago fayrasyada. tallaabada labaad ee loo baahan yahay inaad qaado ayaa waxay tahay inaadan furin amaba kili garayn attachmentnada la socda email aadan filayn in lagu soo diro amaba aadan garanin qofka kuu soo diray, sababtoo ah maanta fayrasyada adduunku waxa ay inta badan ku gudbaan amaba ku faafaan emailada la isku diro. tallaabada saddexaad ee loo baahan yahay inaad samayso ayaa waxay tahay in kombiyuutarkaada aadan gelin amaba aadan u isticmaalin USB-yada daatada lagu qaato midaanan adigu lahayn amaba aadan hubin inuu nadiif ka yahay fayras oo dhan, sababtoo ah waxa si fudud u soo raaci kara fayras kombiyuutarka ku jira. 4 inaad markasta update garayso Windowska kombiyuutarkaada ku jira si kombiyuutarkaadu u ahaado mid la jaan qaada amaba si joogta ah ula socdo waxyaabihii ugu dambeeyay ee lagu soo kordhiyay ammaanka Windowska, taasoo sare u qaadaysa security-ga amaba ammaanka kombiyuutarkaada. tallaabada shanaad ee u baahan tahay inaad qaado ayaa waxay tahay inaad markastaba isticmaasho firewall-ka Windowska la socda amaba firewall kale haddii aad haysato, kaasoo ka difaacaya nooca fayrasyada iyagu iskood u faafa ee loo yaqaan worm, oo aan iyagu u baahnayn program kale oo qaada amaba xambaara sida fayraskii Blaster aynu kaga soo hadalnay qodobkii ugu horeeyay ee barnaamijkeenan maanta. haatan iyo tan inagoo soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena tiknoolajiyadda ee toddobaadkan een idinka soo tabinayay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Maxamed, waxaana si gaar ah ugu mahadnaqayaa Axmed Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Ugaaska iyo Maxamed Axmed Salaxley iyo dhammaan shaqaalaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.